Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada channelka Ceeb Lacuud. Waxaan rabay inaan horta idiin soo gudbiyo sheekada salawaadka nabiga sallallahu calayhi wasallam. Taas horta waa qasab, waxaan rabaa xasuusin weeye, markasta waan ku horumarinayaa sheekadaas. Kadibna waxaan ku xijinayaa sheekooyinkii Maxamed Alxijaazi. Waxaa horta aan maasha Allah aan la yaabay, dadkiina badanaa waa taqaanaan muuqaaladiisa, waa daawataan, waad ku xiran tihiin. Marka sheekooyinkaneet aan hadda soo dayn doono waa laga yaabaa inaad maqasheen. I don't know, ma ku caajisaysaan miya? Haddaadan ku caajisayna dhib iguma hayso. Anigaaba sheekooyin dhan badan ka faa'iidaystay uu isaga leeyahay. Marka horta aan bilaabo qisada salawaadka marka horeeto. Kadibna waxaan idiin soo gudbinayaa qisooyinkii Maxamed Alxijaazi. Allahumma salli wa sallim calaa sayyidina Maxamed. Sheekada aan bilaabano. Haweeneydan waxay tiri aan sheekadeeda ku waramo. Imtixaan weyn ayaa igu dhacay. Faahfaahin badan ma geli karo. Laakiin waxaa muhiimka ah casharka aan ka qaatay. Dhibaato culus ayaa igu soo degtay. Allah baa culayskeeda ogaa, subxaanallah. Guri ayaan joogaa oo nabad ah, wax muran lahayn, buuq lahayn. Waxaan daryeelaa gurigayga iyo xaajigayga iyo howlahayga iyo caruurtayda ayaan ku mashquulaa. Si lama filaan ah ayaa maalin fariin ii soo dhacday. Dacwad maxkamad ayaa la igu furay. Waa yaabay, dacwadan intee ka timid? Wax aniga aan fikrad ka lahaa ma ahayn. Qof ayaa si been ah igu eedeeyay. Waxayna iga rabeen lacag ku dhow ilaa iyo nus milyan. Anigu shaqo ma hayo. Waxa isoo gala waa inta kaliya odagayga isiiyo. Ma lihi kayd. Qof lacag siinaya intaan la egna ma jirto. Alxamdulillah, reerkaygu waa qoys iska ladan, laakiin waa qoys iska dhexdhexaada, lacag badan ma haystaan. Dacwadii ayaan tusa walaalahay. Walaalahay way dadaaleen, ballan maxkamad ayaa la ii dhigay. Laakiin xukunka waxaa la ii dhigay ballan 4 bilood kadib ah. 4taas bilood waxaan ku noolaa walbahaar iyo cabsi. Xagee arrintan ku dabayn doontaa? Lacagta intee ka keeni doonaa? Maxaa dhici doona? Waxaan la xiriiray dad talo aan weydiistay, caawimaad baan raadiyey. Marka waxaan gaaray heer aan quusto oo wax i caawiyo aan waayo oo wax ii qabta aan waayo. Xilli ayaa marayay markii qalbigayga u isdhahay, halkee u magan galaa aan Ilaahay ahayn. Ilaahay bal aan hadda u ordo. Sida hadda kor idiin sheegay, qofka markuu meesha ugu hoose marayo ayuu Ilaahay u ordaa. Laakiin waxaa ka sii fiican adigoo dhibaato ku haysanin inaa Ilaahay u ordo marka hore. Kadibna maalintii aad u baahnaatay Ilaahay subxaanahu wa tacaala, maalintii dhibaato weyn aad ku jirto, Ilaahay wuu ku soo xasuusanayaa, wuu kuu qabanaa waxa u baahan tahay. Sheekadii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo badda nabadiga ku jiray. Codka malaa'igtu way yaqaaneen. Codka meel fog buu ka soo baxayaa oo ducada Ilaahay baryayay. Can you imagine hadii codkaaga laga yaqaano samada? Ya subxaanallah. Marka gabadha marka waxay tiri Ilaahay unbaa marka agtiisa inay ii taalan caawinaad ayaan Ilaah baan u laabtay. Si dhab ah ayaan ugu laabtay. Naftayda ayaan daahiriyey. Dhammaanteen waan gafnaa. Laakiin waxaan bilaabay toobad saafi ah. Waxaan bilaabay istighfaar. Dhammaan dambiyadayda dhan ayaan istighfaar Ilaahay ka weydiisanayay. Waxaan istaagay Ilaahay hortiisa anigoo leh Ilaahayow, waxaan markhaati ka ahay inaan cafiyey qof kasta oo i dulmiyey. Adigan waxaan kaa baryayaa inaad i cafiso haddii aan anigu cid aan dulmiyey. Waxaan bilaabay qiyaamul leyl. Quraankana farahan kula dhigay, mana joojin ka ahayn markaan shaqaynayo, baahida guriga markaan ku jiro iyo salaada. Waxaan badiyey salawaadka nabiga sallallahu calayhi wasallam. Subaxdii iyo fiidkii adkaartana waan bilaabay inaan akhriyo. Had iyo jeer mar kastana waxaan ku jiray wuduu, waa weyse qabay. Haddii xataa aan tukanayn waxba sameynay weli weyse qaadashada waan qaadanaya every minute. Xataa ma fariisan jirin meel anigoo aan daahir ahayn. Ciddii aniga marka dacwadan igu soo oogtay maba aqaani ciduu yahay. Qofku yahay xataa ma garanayo. Waan yaabay. Waxay iga rabaan xataa ma garanayo. Marka qiyaastii 3 maalmood ilaa 4 maalmood ka hor maalinta maxkamadii soo dhowdahay, ma haysanin wax oo lawyer ah, abukaate ma haysan, lacag ma haysan aan ku qabsado. Wax aan haysta haba yaraatee ma jirto. Waxaan u baxay xafiis agteena oo meel ardayda wax loogu qabto. Wax si aan u daabacdo waraaqihii oo jawaabihii aniga aan qortay. Markii aan u tagay qofkii ii daabacay waraaqihii, qofkii waxaan ku dhahay ii daabac waraaqahan. Wuxuu yiri maxay tahay waxaan dacwada maxay ku saabsan tahay? Waan u akhriyay qofkii. Aniga qofkii sheekadan u wada u akhrinaya baa nin gadaashiisa soo istaagay. Qas wuxuu yiraahday ma dacwadan baa adiga ku jirtaa? Markaas waxaan ku yiri haa. Wuxuu yiri aniga waxaan ahay abukaate.
walaashii arrintan aad iyo aad ayay culus tahay. Horaan ku boobsiyo ku degdeg waxaan ku iri walaalo waa mahadsan tahay laakiin aniga abukaato lacag ma u hayo. Ilaah baan ku dhaartay shil aan ku siin karo ma jirto. Soo daxtaas dhihi lahayd qoftaanaytu shaqa wax ka hel waxba kuma hayo. Wuxuu igu yiri ilaah baan ku dhaartay waxba kaama qaadanayo. Waxba kaama rabo. Xafiiskayga meel hebel hebel ayuu ku yaalaa nambarkaygana waa kana ila soo xiriir waa ku caawinaya. Nambarkii waan ka qortay wali shaki baan ka qabaa ninkaanaytu iyo wuxuu rabo qiyaano miyuu rabaa. Wuxuu yiri jawaabta aad qortay kuuma filna hadda. Qof arrintaas si fiican u baara oo u diyaariya oo difaac ayaad u baahan tahay. Aniga kuu sameynay waxaas oo dhan. Gurigii ayaan tagay waan weyse qaatay 2 ragcadood ayaan tukaday kadibna waxaan sameeyay salaad istiqaara ayaan tukaday. Ilaahay ayaan baryay inuu ninkaanayto nin daacada inuu yahay iyo inaan la xiriiri karo in kaleeto ninka abukaataha. Subxaanallah qalbigeygii waxa uu degay waan iska wacay ninkii WhatsApp baan u diray. Wuxuu yiri ii soo dir waraaqaha haysto dhan iyo dacwad dhan ii soo dir. Talaabo ayuu sidii iigu hagay sidii keeskaygii sidii aan u diri lahaa maxkamadda. Wax walba isaga markaan u diray si fiican buu isugu keeso toosiyay. 2 maalmood gudahood ayuu dhammaan feelalkaygii intuu baaray wuxuuna soo diray jawaab sax ah oo maxkamadda loo gudbinayo. Wuxuu yiri markaad gudbiso iigu soo noqo. Maalintii maxkamadda ayaa la soo gaaray. Waxaan joogay anigoo markasta ku celcelinaya salawaadka nabiga Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dhageysiga dhexdiisa meesha maxkamadda anigoo fadhiya garsooraha ama judge su'aalo buu i weydiiyay. Waxaan ka codsaday mid ka mid ah walaalahay inay soo ag fariistaano ee wakiilkayga uu noqdo. Laakiin wuxuu yiri wakiilkaaga adiga baa ku aqoonsanahay anaga qof kale ma aqoonsanin. Halkaas ayaa cillo ku dareemay. Laakiin inuu Ilaahay dhahay camal meeshan qof kaleeto ha u ordin. Adiga aan nahay i weydiiso aniga waxa rabto. Saas ayaan u arkay markaasaan Ilaahay baryay. Markaasaan ducaystay. Ilaahayow adiga u jawaabtay dadka gargaarka u baahan markay ku baryaan. Ii fur albaabada imtixaankan iga badbaadi. Hadal kasta dhexdiisa waxaan ku celcelinayay salawaadka. Sidii looyarkii uu ii diyaariyay ayaan u jawaabayay. Soo garsoorihii wuxuu yiri wax kale su'aalo kale ma qabtaa wax kale ma ku dari kartaa. Waxaan ku yiri Ilaahay baanay dulmigan iga saari karo Ilaahayow igu guuleysii. Dacwadii waxay u ekeed inaan ku khasaari doono oo layga rayn doono. Wax walba waxay u ekaayeen in aniga lacagtan layga rabi doono. Laakiin subxaanallah markii garsoorihii uu bilaabay inuu su'aalo weydiiyo looyarkii iga soo horjeeday oo qolooyin kale ay wateen baa hadalkii ku margaday dacwadiisii iyo hadalkii wixii dhan way burbureen. Waa hadalkii ka soo bixi waayaba. Cadeyntii way burburtay. Markaas ayuu ninkii garsooraha oo qaadiga wuxuu yiraahday waxaan ku dhawaaqaynaa xukunka hadda sheegaynaa. Madax ayaan hoos u dhigay gacmaha ayaan kor u taagay. Ilaahayow iga saar dhibkan ayaan Ilaahay saan u baryay. Markii uu qaadigii hadlay garsooraha markuu hadlay ayuu wuxuu dhahay qofka eedeysanaha wax dambi ma laha dacwadiina waa la joojiyay. Case was dismissed. Halkaas ayaa la dhacay sujuud Ilaahay aan ugu mahad celinayo. Qoyskaygii kulli waan ooynay alxamdulillah. Tan maalintaas runtan ayaa markas maskaxdayda ka yeeraysa dhibaato kasta oo kugu timaada weyn ama yar xitaa khilaaf adiga iyo ninkaaga ama carruurtaada xoog ku dhibaan. Ogow in imtixaan kasta uu wato naxariis hadiyadna ay ku jirto. Albaab kasta oo dadka ka xiraan Ilaahay ayaa kuu furi kara. Marka sheekada halkan bay ku ag tahay oo salawaadka. Qaalaha codkayga waxa weeye si kale hadda maanta Al-Sayd markaan soo kacay weli qof hordaysan oo eka raan ahaada. Sheekooyinka saliga naga caawinta salaam markaad dhegeysataan maxaa dareentaan ilaa intee akhrisaan maalin walbaba. Jimcaha waa maalin sali la kordhiyo. Waa maalin la badsado saliga nabiga calayhi salaatu wasalaam. Maanta wax kale ha sameynina salawaadka badsada wax kas ha tirina xataa haba tirinba. Subaxdii saacad waa soo kacdeen soo maaha. Akhriya ilaa iyo maghribka ha hilmaamina oo saacada ku jirto casirka ilaa iyo maghribka. Casirka ilaa iyo maghribka waxa waa 2 saac maybe u dhaxayso 3 saac ama 2 saac. Wax kale ha raqabnina shaqooyinka oo dhan joojiya markii casirka la gaaro. Meel saliga inta fariisataan marka yani la dhimina distraction in joojiya taleefon dhinaca ku tuura duco iyo salawaad waxa rabtaan Ilaahay weydiista saacada ku jirto oo Ilaahay aqbalayo. Hadii waliba dadka oo qiyaam leelka ku adag tahay saacadan ka faa'iideysta insha Allah halka saacado ku jirta waa 2 saac 3 saac adig meel fariiso Ilaahay weydiiso waxa rabtid hada dib ku jirtid wax kasta Ilaahay weydiiso saacadaas insha Allah.
marka hadda qisooyinkii aad sugayseen yaa walaalkeen maxamed alxijaazi subxaanallah guys sheekooyinkiisa waa cajaa'ib kulligiin waaba ogtihiinba idinkaa markaas i tustaan khayr allah idin siiya waa cajaa'ib sheekooyinkiisa xogoo yar baan kasoo qaadanaya insha allah wuxuu dhahay aan ka bilaabo sug haa marka sheekooyinka waa la soo baxay sheekooyin badanuu sheegay maogtahay videoyaasha qaarkood waan soo dhigayaa meesha descriptionka marka sheekooyinkii unbaa la soo baxayaa marka qofkan wuxuu yiri assalaamu calaykum waxaan rabaa inaan si kooban uga waramo qisadeyda si qof walba ah uga faa'iideysto waxaan ahaa qof shaqaysta laakiin xaaladii baa igu adkaatay kadibna si kadis ah ayaan shaqo la-aan u noqday dhibaatooyin badan ayaa isoo wajahay ilaahay uunbaa og rafaadka iyo dhibkan ku jiray guriga eedadii ayaan deganaa marka eedadii waqti ayay ii qabatay inaan gurigeeda aga baxo anigoo shaqo la-aana waxba haysan bay tiri guriga ka bax markaas ayaan go'aansaday inaan si fiican ilaahay u baryo weliba xilliyada ducooyinka la aqbalo iyo istikfaar badan inaan maalin kasta aan sameeyo ducadeyda waxay ahayd ilaahayow haddii imaatankeeda shar ii tahay eedadeed ha u fududayn safarkeeda imaanshaha haddii khayr iigu jiran imaatankeeda qalbigeeda ilaahayow ii jilci diigana dhig qof ii naxariisata marka gabadhan waxaan ka dareemay guri ayay degan tahay gurigaas eedadeed ayaa leh eedadeed marka dibadda meelahay ku maqnayd way soo socotay waxay tiri waa soo socdaaye guriga iiga bax waxay tiri shaqo ma haysto waa dhibanahay wax aan haysta ma laha marka waana waxay tiri ilaaha marka baryay in ilaahay qoftaaneeto sharteeda iga wareejiyo ee dhinaceeda fiicanna igu soo aadiyo marka wallaahi eedada way timi bay tiri allaba mahad leh qalbigeediina wuu ii jilcay cajiibna waxay ahayd inaanan guriga iga saarin sidii ay qorsheynaysay subxaanallah mideeda kale deyn badan ayaa laygu lahaa anigoo ku jira ciriiri ayaan alla ka baryay istikfaarna waan badiyey oo iyaduna si ii caawiso eedadii laftigeeda inay caawiso ilaahay ka baryay wallaahi intay guriga dushiisii saqafka korkiisii bay markaan ducada sameeyey kor bay fadhiday iyadoo kor aysan kasoo degin bay lacagtii iigu soo dirto taleefonka ama way iisoo gudbisay transfer bay igu soo samaysan lacagtii xitaa ma aysan weydiinin waay lacag ugu baahan tahay meeqa u baahan tahay kulli way iisoo dirtay qoftan eedaday ah 2 sano oo dhan wax caawimaad ah kama helin haddana waaba kaasba alxamdulilah ilaah baa iisoo wareejiyey oo iisoo jeediyey alxamdulilah ilaah baa naxariis leh qof ilaahay ma iloobo qaar ka mid ah arrimahayga weli jawaab maanan helin balse nimco ayaan ku noolahay mahad alla ayay u sugnaatay kadibna adeer maxamed alxijaazi baan u mahad celinaya bay tiraahda oo inoo noqdo sida aabba camal ninkaan nin famous waay maasha allah okay qofkan wuxuu dhahaa qisada labaad uu soo gudbi waxay ahayd bilihii u dambeeyay istikfaar ayaan joogteeyey ayaa qofkan dhahaya maxamed alxijaazi markaan waan daalo ayuu yiri waxaan alla ka codsaday gargaar habeen ayaan waxaan ku riyooday waddo uu adeer xijaazi marayo wuxuu igu yiri aan isla wadno 30,000 intaas kaliyuu yiri waan daba ku yiri waan daba galay dhammaadka waddadana waxaa ka buuxa geedo iyo doog iyo cagaar marka maxamed alxijaazi wuxuu leeyahay hadda aniga 30,000 ma ka gaaro sababtoo ah mashquul ayaan ahay laakiin faraaqadiina ka faa'iideysta intaadan mashquulin badinta khayr ayay leedahay okay qisadan saddexaad waxa weeye gabadh baa waxay usoo gudbisay tan runtii waa sheeko qurux badan oo ku saabsan u laabashada allah subxaanahu watacaala loo laabanayo istikfaar oo tiro badan weli ma gaarin maalinta istikfaarteeda ma dhaafto 4,000 oo istikfaar tanaaba aniga ila badan maasha allah tabaaraka allah ilaahay naga dhig qof oo intaan in ka badan sameeya allah naga dhigo aamiin laakiin dambi khaas ah ayaa jirtay oo aan joojin waaye bay gabadhan tiraahdo alxamdulilah istikfaar dartii ayaa dambigaas ilaahay igu fududay inaan ka tago mana arka xataa inuu egyahay mid aan u laaban doono biidnillah sanado ayaan ku dhibanaa sidaan isaga jari lahaa dambigan istikfaar badan intaan sameeyo baa haddana dambiga u laaban jiray laakiin waxaan bilaabay inaan qoro maalmaha aan dambigayga joojinayay markii koowaad 10 maalmood ayaan ka maqnaa dambigan oo waan u noqday haddana dambigii markii labaad 17 maalmood ayaa haddana u dhaxeeyay inaan joojiyo markii saddexaad 26 maalmood ayaa u dhaxaysay intaan dambiga sameeyay hadda waxaan marayaa maalintii 21aad xitaa kama fakaro dambigaas aad baan uga faraxsanahay ilaahay waxaan ka baryayaa istiqlaal inaan ku fara adeego wixii fiican marna ma raba inaan istikfaar ka tago oo aan dambigii ku laabto marka maxamed alxijaazi wuxuu yiri diiwaangelinteeda qoftan ay qoraysay
waxay muujinaysaa sida dembiga istikfaarta u yarayso. Rabitaanka dembigu way ka yaraatay. Dembiga samayska ay rabto inay samayso wuu ka yaraaday. taasi waa quruxda istikfaar. markii albaqra aad kusii dartidna si tartiib tartiib ayuu u baabi'inaysaa rabitaanka waxyaalaha xunxun oo dhan. laba qiso kaleetaan wadaa oo isaga maxamed alxijaazi aan kasoo qaatay video kale ah. gabadhan ayaa waxay dhahaysaa waxaan weli la yaabanahay waxa igu dhacay. in ka badan 30 sano ayaan xaas ahaa. ninkii wuxuu ahaa nin muslim oo carab ah laakiin isku waddan kama iman. bilowgii guurka ayuu igu jeesjeesi jiray, wuu i yeesi jiray. qoyskaygana aflagaadeyn buu ku hayay. inkastoo qoyskayga sharaf iyo cilmiba ay lahaayeen, waxaan ahaa xaas fiican oo ninkeeda la shaqaysa, oo qarashka guriga la bixisa, oo gurigeeda dhaqata, carruurteedana korsata, oo hooyadiis iyo qoyskiisana ixtiraamta. waxaasoo dhanna wax micnaha agtiisa kama lahayn. carruurteeni waxay koreen iyagoo maalin walba arkaya in hooyadoo la bahdilayo hortooda. ugu dambeyn carruurtii iyagiiba baa meeshii ka simiisay oo wax ixtiraam iyo tixgelin iyo qadarin iima hayn anigoo hooyadood ah. taasna qalbigaygii way jabisay. markii aan 40 dhaafay waxaan bilaabay xanuuno. indhahayga mid ayaan ka arki waayey. sonkor iyo wadna xanuun ayaa igu bilaabmeen. ninkaygii wuu sii xumaado uuba kasii daray. habeeno badan ayaan qiyaam intaan istaagay ilaahayaan baryi jiray silacan inuu iga badbaadiyo, laakiin xaaladeyda way kasii daraysa mar walba aan ducaysto. maalin buuba xadka dhaafay ninkaygii. waan ooyey, waan baryay dhibka inuu iga daayo. wuxuu bilaabay inuu sheekooyin been ah carruurteena iyo xaasaskooda uu u sheego, uu aniga iga alifinayo. intaas kadib buro kansar ayaa iga soo baxday, taasoo kasii dartay stresskaygii markuu fara bato. waan kasii xanuunsanaanayay. fiidiyoyadii ustaad maxamed alxijaazi ayaa youtube iga soo horbixi jiray mar alle. horey waan iska indhitiri jiray, laakiin markasta way iga soo hor imanayeen. waxaan bilaabay inaan mar uun iska fiiriyo oo daawado. dabadeedna istikfaar ayaan bilaabay muddo 1 ilaa 2 bil. marar badan ayaan barkinta ku oyn jiray anigoo ilaahay baryaya. waxaan dareemay cod markasta igu dhiirigelinaya hamurugoon. ilaahay ayaa kuu aargudi doona. ilaahay baan ku dhaartay si lama filaan ah ayuu ninkaygii maalin jooga ka dhacay. wuu istaagay, dabadeedna wuu suuxayaa. muddo yar kadibna stroke baa ku dhacba. stroke waa tan oo jirada maaragtay oo anigu sidaan ku tilmaamo, laakiin stroke ma hadli kartid, ma dhaqaaqi kartid, mamar jirkaaga nus buu ku dhacaa. marka ninkii stroke baa ku dhacay. indhaha keliya unbuu dhaqdhaqaajin jiray, far ma dhaqaajin jirin. wax uu dhaqaajin jiray kalama, indhihiis unbaa dhaqdhaqaaqi jiray. laakiin hadal iyo waxa adeeba sheegaysidba indhihiisii baan ka dareemay inuu cafis weydiisanayay. mararkii dambe waan la murugooday xaaladiisii, inkastoo dadka agahayga joogeen ay dhahayeen bal arag ilaahay waa caadil, ilaahay ayaa ku argoynaya. laakiin ma dhagaysan dadka. ugu dambeyn ninkaygii wuu dhintay, allah u naxariisto, anigana ilaahay dembigii ha dhaafo. hadda waxaan ku noolahay nolol deganaan ee xasilooni oo aan maskaxdeeda aamini karin. istikfaarna weligay kama tagin. ilaahayna carruurteydii wuu ii hanuuniyey. wanaagoodii ayuu ilaahay ii soo jeediyey. gurigayga gudihiisana si xor ah ayaan ugu dhaqdhaqaaqaa. can you imagine guriga aad degan tahay xor ugu dhaqdhaqaaqaysid ayaaba nimco ku ah. gabadhan waa ku rafaaday wallaahi subxaan allah. deeq iyo dhaqaalena waan haystaa, taas oo aan helo si lama filaan ah. xataa maanta walaalkii wuxuu ii soo diray lacag badan anigoo weydiisan. buradii oo kansarka ahaa ilaahay wuxuu igu hanuuniyey hab aan raaco 10 maalmood ah iyo wax la jiro oo baaritaanadii dhan waxay soo laabteen jirkaygii oo si nadiif ah, caafimaadna sii helaya. buradiina way iga yaraatay oo way sii qalashay. dhammaan ilaahay baa ammaan leh. tirada istikfaarteedu bilowgii wuxuu ahaa 20,000 iyo 25,000 inta u dhaxaysa. wax ka badan intaa ma samayn jirin, maxaa yeelay dhibtii ninkaygii awgeed. albaqara waan akhrin jiray maalintii 2 ilaa 3 jeer, laakiin markaan gaaray 30,000 ilaa 32,000 istikfaar iyo albaqara oo hal mar aan akhriyo, nolosheedii si buuxda ah ayay isku bedeshay. wax ka fiican wixiina waan helay. ama anigoo nafteeda ammaanayn, qur-aanka 75% waa xifdiyey. qiyaam ayaan u istaagi jiray, soonna waan soomi jiray, laakiin nolosheedii waxba kama bedelmin ilaan aan istikfaarkan bilaabo oo ku far adeegay. mararka qaar haddii aan mashquulkaas waan joojiyaa.
waayo fadhi istikfaar ah ayaan u xiisaa. Ilaahayow noo barakee nimcadan. Ustaad Maxamed Alxijaazina Ilaahay ha ku barakeeyo. Marka waa ka sheekada halka sheeka inoo dhiman. Kan waxa weeye wuxuu yiraahday qofkan assalaamu calaykum Ustaad Maxamed Alxijaazi iyo dhammaan walaalaha. Aad baan idinku mahadcelinayaa dadaalka aad samaysaan. Ilaahay cibrigiina iyo caafimaadkiina hadiin barakeeyo. Waxaan ahay wiil dhalinyar oo reer Yemen ah, ka yar 30 jir. Sanadkii markuu ahaa 2024 bartamihiisii ilaa iyo 2025 bilowgiisii. Waxay ahaayeen sanadihii iigu adkaa, dhaqaale iyo caafimaad iyo nafsiyanba. Waxaan dayacay cibaadadii Alle subxaanahu wa tacaala. Heeso ayaan ku dhageysan jiray shaqada. Waxyaalaha xaaraantana waa daawan jiray. Salaadahana waa daahin jiray. Istikfaar iyo salawaadna waa ka tegay. Waxaan garowsaday inaan ciqaab Alle ku noolahay. Isbuuc ama 2 isbuuc ka hor Yawmul Carafa ayaan bilaabay istikfaar anigoo raacay habka uu ustaad noo baray. Badinta astaghfirullah waa wiil Suudaani oo Mareykanka jooga sameeyo. I think hadda kahor waxa waay muuqaal uu sameeyay uu ka sheekeynay sheekadaas. Haddaan soo helo waan soo gudbinayaa. Intaan channelka raadiyay baa waxaan daawaday sheekooyinkan istikfaar badan dad sameeyay. Albaabada loo furay, mucjisooyinkay arkeen. Intaan isdhibay ayaan bilaabay. Isbuucii koowaad roob uu Alle ii keenay inkastoo kuleel badan uu jiray sanco oo zaa'id ah. Ustaadka ayaan soo xasuustay, ducana waa u duceeyay. Waxaan kordhiyay istikfaarta maalintaas iyo maalin walbaba. Waxaan ka helay deganaan iyo kalsooni iyo tawakkul iyo cabsi aan ka cabsanayn wax mustaqbalka oo dhan future-ka dhan kama cabsanayn iyo yaqiin Ilaahay wuu i siiyay. Waxaan u badnaa inaan daawado Ustaad Maxamed iyo akhi Ibrahim Alxarbi channelkooda. Okay, Ibrahim Alxarbi ina raadiyo waa isna. Masha Allah. Qisooyinka ay soo gudbiyaan wuxuu soo kordhiyaa yaqiinta iyo kalsooni Ilaahay aan ku qabno iyo gargaar Alle. Ilaahay idinkiis. Maalin xafiiska shaqada anoo jooga ayaa internetkii naga go'ay. Wax shaqo ah ma jirin maalintaas. Waxaan go'aansaday inaan akhriyo suuratul Baqara. Maalintaa waxay iga qaadatay qiyaas 2 saacadood. Daal iyo hurdo ayaan dareemay. Caajis iyo culaysna waan dareemay. Laakiin markii aan 45 maalmood ku celcelinayay oo aan waday suuratul Baqara way ii fududaatay. Hadda saacad ka yar ayay iga qaadataa oo ku dhameystiraa. Waana mustaxiil, impossible inaan joojiyo. Bilowgii akhriska al-Baqara waxaan isku arkay calaamado kaadideedu guduudan, calool xanuun zaa'id ah iyo finan guduudan oo caloosheedii ka soo baxay. Dhammaantood hadda way baaba'een. Ilaahay baa igu og I think il ama sixir laga yaabaa inuu ahaa. Talaabo ayaan ugu soo dhawaaday Alle subxaanahu wa tacaala. Qiyaam ayaan bilaabay. Fajrka waqtigeedii ayaan tukadaa. Habeen ayaan ilaaway inaan saacadda alarmka gashto 3:00 qof aan aqoon ayaa isoo wacay habeenkaas saacadaas oo igu soo qaldamay. Wuuna i kiciyay. Tan waxay dhacday 2 jeer inaan qiyaam leel u kaco. Qof oo aan aqoonin igu soo qaldamo. Maalin kale irku daruuro badan ayaa ka muuqday. Waxaan Ilaahayow roob inoo keen. Marka anigoo suuratul Baqara akhrinaya, daruuro madow ayaa gurigayga dushiisii soo dul istaagay. Roobna wuu da'ay. Qalbigayga Ilaahay wuu qanciyay. Dad aan deyn ku lahaa iyagoo aan xasuusin oo anigoo aan lacagtii dabagelin bay ii soo celiyeen. Anigoo xaalad adag ku jiray. Wax walba si fudud ayay u imanayeen. Traffic markaan ku jiro oo aan shaqo u socdo ama meel u socdo waxaan ka dhigtay fursad oo dhikr aan ku sameeyo. Awal waa dhibsan jiray laakiin hadda waaba jaanis aan dhikr ku sameeyo. Heesihii taleefankii ka buuxayna waa ka tirtiray. Haddii mar aan rabo inaan ku laabto hees isla markiiba waan toobad keenaa oo istikfaar ayaan badiyaa. Mar waan ku faayaa buu yiri oo waan ku dhici karaa laakiin waan soo laabtaa. Waxaan Alle ka baryayaa inuu naga dhigo dad ku fara adag oo ku dhagan dhikrkooda. Idinkana Allah idinku adkeeyo. Intii aan Ilaahay la kulmayno subxaanahu wa tacaala. Aamiin. Marka intaas sheekooyinka ku egyihiin maanta hadduu Alle yiraahdo. Marka insha Allah ii soo duceeya. Isniinta waa safrayaa. muraad ayaan leeyahay Ilaahay ii soo duceeyo. Marka khayr baan soo ognahay insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.